Tebes magaalada nolosha, guriga Imhotep wadaadkii sare ee Fircoon, ilaaligii dadka dhintay. Halka uu ku dhashay Ankhesenamun, marwada Fircoon. Nin kale looma ogola inuu taabto, laakiin jacaylkooda dartiis waxay diyaar u ahaayeen inay naftooda halis geliyaan. Maxaad halkan ka qabanaysaa? Yaa ku taabtay? Waxay eegtay Imhotep. Iyagu ma ay lahayn doorasho. Waxay bilaabeen inay tooriyayaan Fircoon. Isla markiiba waxaa yimid ilaaladii Fircooniga. Ankhesenamun ayaa isdishay, laakiin Imhotep waa uu waayey. Imhotep iyo wadaadadiisii ayaa xabaasha u galay oo waxay xadeen maydkeeda. Waxay si qoto dheer ugu yaaceen lamadegaanka, iyagoo maydka Ankhesenamun geeyey Hamunaptra. Jacaylkiisa dartiis, Imhotep wuxuu ku dhiiraday inuu sameeyo talaalka wadnaha ugu horeeya. Halkaas oo uu ka qaatay kitaabkii dawooyinka ee laga mamnuucay meesheedii quduuska ahaa. Ankhesenamun wuxuu ku sigtay inuu tooso, laakiin ilaalada Fircoon ayaa raacay Imhotep oo joojiyey ka hor inta aan la dhammaystirin howlgalka. Imhotep iyo wadaadadiisii ayaa lagu xukumay in la muumeeyo iyagoo nool. 3,000 oo sano kadib, matxaf ku yaal Qaahira. miyaanad ixtiraamin kuwii dhintay? dabcan waan sameeyaa, laakiin mararka qaarkood waxaan jeclaan lahaa inaan ku biiro iyaga. Waxaan jeclaan lahaa inaad samayso ka hor inta aadan burburin xirfadayda. Hadda ka bax. Gacaliye walaashay yar oo macaan. Wakhtigan saxda ah, xirfadayda waxay ku socotaa meel sare. Ina mari, Jonathan, fadlan. Runtii ma niyadda kaftankaaga? Waxaan helay fure qadiimi ah. Maxaad u malaysaa? Jonathan, waxaan u malaynayaa inaad heshay wax gaar ah. Waa khariidad ku socota Hamunaptra. Furaha ma ka xaday ninkan? Haa, waan ka cabsanayaa isaga in yar. Kumaad tahay? Gabar caato ah. Gabar caato ah. Tani waa walaashay Iwi. Sideed tihiin? Kaliya halkan ayaan ku nasanayaa. Waanu helnay furahaagii iyo khariidada. Halkan kama soo jeedid. Sah. Ma naqaano meesha Hamunaptra. Waanu gahay meesha ay magaaladu tahay. Dhab miyaa? Hamunaptra, magaalada xasnada dahabka ah. Cajiibsana, ma noo horseedi kartaa goobta? Waan ogahay inaad ahayd amiir. Dab miyaa? Waa caadi. Ma i guursanaysaa? Haa. Ninku waa xoog badan yahay. Waxay ahayd arrin wanaagsan in la guursado. Haa, hantida dahabiga ah waa hadiyadda arooska. Meesha uu ku yaalna wuu garanayaa. Nasiib wacan. Sidaa darteed waxay ku iibsadeen geel si ay u bilaabaan safarkooda. Amiirkii wuxuu arkay amiiradii oo ku labisan dharkeeda bari. Maasha Allah. Waxay ku farxay falcelintiisa. Si wada jir ah ayay dhammaantood geela u fuuleen saxaraha weyn ee saxaraha. Intii ay jidka ku jireen, dadka qaar baa arkay oo bilaabay in ay raacaan si ay iyaguna u gaaraan meeshii dahabka. Markay magaaladii meel dhow ka soo arkeen ayay awrkii aad u dheereeyeen. Aakhirkiina halkaas ayay gaadheen. Imhotep waxaa lagu aasay magaaladan. Dhammaantood waxay bilaabeen inay wax yar qodaan. Dhaqso, xawaaraha. Mar qura ayaa iftiin soo baxay. Taasi waa khiyaamo fiyaal. Kani wuxuu ahaa qolka qaliinka. In yar ayaan ku hadli karaa Soomaalida. Taasi waxay sharxaysaa lahjadaada. Haa. Qaliinkii ugu horeeyey ee wadnaha ayaa ahaa halkan. Taasi maxay ahayd? Waxay u dawaqdaa sida cayayaanka. Waan necbahay cayayaanka. Amiirkii wuxuu xusuustay fiyaamadii muraayada. Ugu dambayntii waxay gaadheen qolkii oo dahab ka buuxo. Amiirka ayaa shaaca ka qaaday hadiyadda arooska. Dabin baa ku sugayay halkaas. Meesha oo dhammi way dunta. Nasiib darro, dahabkii oo dhan way qaadan waayeen, laakiin weli way ku filnaan jireen. Amiirad ka timid Ingiriiska ayaa ku faraxsanayd in amiirku weli nool yahay. Waxay ku noolaayeen farxad weligood kadib. Halkaas ayay ku dhammaatay sheekada.